boqortooyada Kuush ayaa gabi ahaanba la waayay markii ay dhamaatay. sheekooyinka awoodeeda kuma noola dhaqamada boqortooyooyinkii kale ee ka dambeeyay malaha sababtoo ah masiixiyadu isla markiiba way raacday taas oo u baahan dadka gobolka Nubianka inay u jeestaan xagga bare iyo quraafaadka masiixiyada. meel dambe ma ay lahayn taliyayaashii hoggaanka ahaa ee Kuush, Amon iyo Ri, ama sidoo kale ma ay lahayn ogaal ah meel ay wiilashoodu ku noolaayeen oo ahaa boqoraday Kuush. boqortooyadu waxa ay sii waday inay ka jirto sheekooyinka qaar ka mid ah qoraayaasha qadiimiga ah kuwaas oo ku biirinaya quraafaadka taariikheed ee inta badan lagu daro taariikhda dunidii hore, laakiin inta badan waxaa loo tixgeliyay inay tahay wax aan ka fogeyn malaha xitaa mala awaal boqortooyo halkaas oo ay ku nool yihiin xayawaanada aanu ilbaxnimadu lahayn. iyada oo uu xiisaha dib u cusboonaaday farshaxanka qadiimiga ah ee Gariiga iyo Roomaanka, Renaissance-ga ayaa dib u helay jiritaanka Kuush. si kastaba ha ahaatee lama sahamin ilaa socdaalkii Naaboliyiinta ee Masar 1798. Renaissance-ga waxay ahayd xilli dhaqameedkii farshaxanka iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha Yurub kadib qarniyadii dhexe. guud ahaan waxaa lagu tilmaamay inay u dhaxaysay qarnigii 14aad iyo qarnigii 17aad. Renaissance-ga waxa uu kor u qaaday dib u helidda falsafada qadiimiga ah, suugaanta iyo farshaxanka reer Kuush. xitaa markaasi waxaa loo arkayay inay tahay qayb ka mid ah dhaqanka faraaciintii Masar. daafurkii ay sameeyeen sahmiyayaasha qarnigii 18aad iyo kii koowaad waxa ay cadeeyeen inay jiraan dhab ahaan laba dhaqan oo kala duwan. si kastaba ha ahaatee sharaxaadani waxa ay si weyn u saameysay Darwinism-yada waa aragti ka mid ah horumarinta noolaha uu horumariyay filosof Ingiriisi ah ee lagu magacaabo Charles Darwin 1809 ilaa 1882 iyo qaar kale, iyaga oo sheegay in dhammaan noocyada noolaha ay soo baxaan oo ay ku koraan xulashada dabiiciga ah ee yaryar kala duwanaanta laga dhaxlo taas oo kordhisa awoodda shakhsi ahaaneed ee tartanka, badbaadada iyo taranka bulshooyinka. culimadu waxa ay soo bandhigeen Afrika oo dhan inay tahay meel ay ku nool yihiin Negrigaska aan ilbaxnimadu lahayn. Negrigaska waa dadka leh midabka madow dhaxaadka ah ama midabka naga Soomaaliga ee qaxwada ama brownka, kaas oo aanu jirin cadaan iyo madow toona balse isku dhex qasan. dadkani waxa ay ku nool yihiin saxaraha Afrika. Kuush iyaga kamay reebin. ra'yiga guudna waxa uu ahaa in Masar ay xukumayeen Kuushiyiinta aan ilbaxnimadu lahayn. xitaa xukunkii boqortooyadii 5 iyo 20aad waxaa loo arkayay wax aan ka badnayn kushitiska nasiibka yar oo ku dayanaya faraaciintii Masar. waa barnaamij cusub kaas oo aan maalin waliba tixanayaal aanu ku soo bandhigi doono aan ugu waramayo boqortooyadii Kuush. anigoo Cabdiqaadir Maxamed ayaa soo saaray idilana socodsiinaya. halkan ayaad kala socon doontaa maalin waliba rukumo channel-kanaga si aad ula socoto tixanayaashani si joogto ah. mahadsanid.